wuxuu maqlay hadalkii Laabaan wiilashiisii iyagoo leh Yacquub baa wixii aabbaheen oo dhan wada qaatay oo xoolahan oo dhan wuxuu ku helay wixii aabbaheen. Yacquubna wuxuu fiiriyey wejigii Laabaan oo wuxuu arkay inuusan sidii hore u ahayn. Rabbiguna wuxuu Yacquub ku yidhi, ku noqo dalkii aabbaha iyo xigaalkaaga oo anna waan kula jiri doonaa. Yacquubna wuxuu u codray oo u yeeray Raaxeel iyo Leah inay yimaadaan barrinkii adhigiisu joogay, oo wuxuu iyagii ku yidhi, waxaan arkay wejigii aabbihiin inuusan sidii hore ii ahayn, laakiinse Ilaaha aabbahay baa ila jira. idinkuna waad og tihiin inaan aabbihiin xooggayga oo dhan ugu adeegay. laakiin aabbihiin wuu i khiyaaneeyey oo 10 goor buu mushahaaradaydii beddelay. ilaahse uma oggolaan inuu wax ii yeelo. hadduu yidhi, kuwa dhibicyada lahu waxay noqon doonaan mushaharadaada, adhiga oo dhammu wax dhibicyo leh bay dhaleen. hadduu yidhina kuwa xariijimaha lahu waxay noqon doonaan mushaharadaada, adhiga oo dhammu wax xariijimo leh bay dhaleen. sidaasaa ilaahay aabbihiin xoolihiisii uga qaaday oo uu aniga ii siiyey. wakhtigii adhigii rimay ayaan indhahayga kor u taagay oo aan riyo ku arkay orgidii adhiga ku boodday inay wada lahaayeen xariijimo iyo dhibicyo iyo barbaro. malaa'igtii ilaahna waxay igu tiri intaan riyoonayey, Yacquubow, oo anna waxaan idhi, waay kan. oo waxay tidhi, haatan indhahaga kor u taag oo arag, orgida adhiga ku boodda oo dhammu waxay wada leeyihiin xariijimo iyo dhibicyo iyo barbaro. maxaa yeelay waxaan wada arkay waxa Laabaan kugu sameeyo oo dhan. waxaan ahay ilaaha Baytel, meeshii aad tiirka ku subagtay oo aad nidarka igu nidirtay. haddaba kac oo dalkan ka bax oo ku noqo dalkii aad ku dhalatay. markaasay Raaxeel iyo Leah u jawaabeen isagii oo ku yidhaahdeen, weliba qayb baa guriga aabbahayo noogu hadhay, amase dhaxal miyaanan xaggiisa ka xisaabnayn shisheeye? waayo wuuna iibiyey oo weliba lacagtayadiina wuu cunay. waayo kulli maalkii ilaah ka qaaday aabbahayo waxaa leh aniga iyo carruurtayada. haddaba yeel waxay ilaah kugu yidhi. markaasuu Yacquub kacay carruurtiisii iyo naagihiisiina wuxuu fuushiyey awrtii, wuuna la tegay xoolihiisii oo dhan iyo alaabadii uu urursaday, kuwaasoo ahaa xoolihii uu helay oo uu ku ururiyey Fadan Araam inuu tago xaggii aabbihiis Isxaaq iyo ilaa dalkii Kancaan. Laabaanna wuxuu ku maqnaa inuu indhihiisa dhogorta ka soo xiirto. kolkaasay Raaxeel xadday sanamyadii aabbaheed lahaa. markaasaa Yacquub si qarsoon uga tegay Laabaankii reer Suuriya oo aan ogayn, umana uu sheegin inuu cararayo. oo sidaasuu ula cararay waxay uu haystay oo dhan. oo intuu kacay ayuu webigii ka gudbay oo wejigiisii ku toosiyey buurtii Gilicaad. maalintii 3aad baa Laabaan loo sheegay in Yacquub cararay. markaasuu walaalihiis ka haystay oo wuxuu raacdaynayey 7 maalin socod, wuxuuna ku gaadhay buurtii Gilicaad. markaasaa ilaah riyo habeennimo ugu yimid Laabaankii reer Suuriya oo ku yidhi, iska jir oo Yacquub xumaan iyo wanaagtoona ha kula hadlin. Laabaanna wuu soo gaaray Yacquub. haddaba Yacquub teendhadiisii wuxuu ka dhistay buurta. Laabaanna walaalihiis wuu kala dhistay buurtii Gilicaad. Laabaanna wuxuu Yacquub ku yidhi, waa maxay waxaan aad samaysay? oo maxaad si qarsoon iiga soo tagtay anoo aan ogayn, oo aad gabdhahayga ula soo carartay sidii iyagoo ah maxaabiis seef lagu soo dhacay? waxaa qarsoodiga ugu soo carartay oo aad si qarsoon iiga soo tagtay
oo maxaad igu sheegi weyday si aan kugu soo ambabixiyo rayn iyo gabayo iyo daf iyo kataarad oo maxaad iigu oggolaan weyday inaan dhunkado wiilashayda iyo gabdhahayga dee taas nacasnimaad u yeeshay dee xoog aan wax kuugu yeelo waan leeyahay laakiinse ilaaha aabbaha waa xalay ila hadlay oo wuxuu igu yidhi iska jir oo yacquub ha kula hadlin xumaan iyo wanaagtoona oo haatan waa tagtay maxaa yeelay aad baad ugu hilowday gurigii aabbaha laakiinse maxaad ilaahyadayda iiga soo xadday yacquubna waa u jawaabay oo wuxuu laabaan ku yidhi maxaa yeelay waan cabsaday waayo waxaan isiri wuu kaa xoogi doonaa gabdhihiisa qofkii aad ilaahyadaadii ka hesho waa inuusan noolaan walaalahayo hortooda ku fiiri wixii aan kaa haysto oo iska qaado waayo yacquub ma uu ogayn inay raaxeel soo xadday laabaanna wuxuu galay teennadii yacquub iyo teennadii leah iyo teennadii labada addoommood laakiinse ma uu helin oo intuu ka baxay teennadii leah ayuu galay teennadii raaxeelna way qaadday sanamyadii oo waxay gelisay heeryadii awrta wayna ku fadhiisatay laabaanna wuu ka wada baadhay teennadii oo dhan mana uu helin oo waxay aabbaheed ku tidhi sayidkaygiiyow ha u cadhoon inaanan istaagi karin waayo caadadii dumarku heli jiray baan qabaa isna wuu baadhay laakiinse sanamyadii ma uu helin yacquubna wuu cadhooday oo laabaan wuu la murmay yacquubna wuu u jawaabay oo wuxuu laabaan ku yidhi waa maxay xadgudubkaygu waa maxay dembigayga aad aawadiis aad iigu soo raacdaysatay waxaad baadhay alaabtayda oo dhan ee maxaad ka heshay oo ah alaabtii gurigaaga halkan soo hordhig walaalahayga iyo walaalahaaga inay labadeenna inoo kala garnaqaan 20 sannadood baan kula joogay laxahaaga iyo riyahaaguna dhacis ma dhalin wananka idahaagiina ma aan cunin kuwii dugaaggu ka cunayna kuma aan keenin laakiinse anaa kuu magdhabay anaad i weyddiisan jirtay ha ahaadeen wixii maalin lagaa xado ama wixii habeen lagaa xada maalintii walayl baa i dili jiray habeenkiina dhaxal hurdadiina waa iga tagtay oo sidaasaan ahaan jiray 20 sannadood baan gurigaada joogay 14 sannadood waxaan kugu shaqeeyey labadaada gabdhood aawadood 6 sannadoodna adhigaaga aawadiis mushaharadaydiina waxaad beddeshay 10 goor ilaaha aabbahay oo ah ilaaha ibraahim iyo kan isxaaq ka cabsado haddii uusan ila jirin hubaal haatan waxaad ediri lahayd anoo fare madhan ilaah wuxuu arkay dhibaatadaydii iyo hawshii gacmahayga kolkaasuu xalay ku canaantay laabaanna wuu u jawaabay oo wuxuu yacquub ku yidhi gabdhuhu waa gabdhahayga carruurtuna waa carruurtayda ariguna waa arigayga oo waxa aad aragto oo dhammuna waa waxayga haddaba maxaa maanta ku samayn karaa gabdhahaygan ama carruurtooda ay dhaleen haddaba kaalay aan aniga iyo adigu axdi dhiganne hana noqdo markhaati ina dhex yaalla aniga iyo adiga markaasaa yacquub dhagax soo qaaday oo sidii tiir u qotomiyey yacquubna wuxuu walaalihiis ku yidhi dhagaxyo soo ururiya kolkaasay dhagaxyo soo gureen oo meel taalleeyeen kolkaasay taallada agteedii wax ku cuneen laabaanna wuxuu meeshaas u bixiyey yagar
sahaduta yacquub si wuxuu u bixiyey galceed laabaanna wuxuu yidhi maanta taalladanu waa markhaati ina dhex yaal aniga iyo adiga sidaa daraaddeed waxaa magaceeda loo bixiya galceed iyo misfaax waayo wuxuu yidhi rabbigu ha dhowro aniga iyo adiga dhexdeenna markaynu kala maqannahay haddaad gabdhahayga dhibtid ama aad naaga kale gabdhahayga la guursatid ninna ilama joogo balse ogow ilaah baa markhaati dhexdeenna ka ah aniga iyo adiga laabaanna wuxuu yacquub ku yidhi bal eeg taalladan oo bal fiiri tiirka aan ina dhex dhigay aniga iyo adiga taalladanu markhaati ha noqoto tiirkuna markhaati ha ka noqdo inaanan taalladan kugu soo dhaafayn inaan wax ku yeelo adna aadan taalladan iyo tiirkan igu soo dhaafayn inaad wax yeeshid kan ah ilaaha ibraahim iyo ilaaha naaxoor iyo ilaaha aabbahood ha ina kala xukumo innaga yacquubna wuxuu ku dhaartay kan aabbihiis isxaaq ka cabsado yacquubna allabari buu buurtii ku bixiyey walaalihiisna wuxuu ugu yeedhay inay wax cunaan cuntadiina way cuneen habeenkii oo dhanna buurtay joogeen laabaanna aroor hore ayuu kacay walaashiisii iyo gabadhiisiina wuu dhunkaday wuuna u duceeyey markaasuu laabaan tegey oo ku noqday meeshiisii